بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي أمتي سمو اسكو إيغيا فيديوغينا الأركثان وإنا يرو باكستانيادا أيضو انتا لغا يا أرورتي كالهدا وحينكو كالهدا ميشا قشنك لغو سو تورو سي أي ريركو دوغا بيليسو إلا كبا عدادا أدعيتنا أدو كلو شاهي أي وحي مالين تورن بارثا قشنكا سي أوغو هشو waxay reerkooda u iibiso ay cunto uga dhigto inanta yar iskuul ma tagto waxbarashana ma haysato laakiin waxay la dagaalamaysaa nolol maalmeedkeedii sidii u heli lahayd ee ugu badbaadi lahayd reerkoodana ay wax u siin lahayd. ilaahay wuxuu isku eegayaa ummadiisa kuwii wax qaystay iyo kuwii aan waxba haysanba ilaahay isagu wuu arsaaqayaa meel uu ka siiyaba. inanta yar hataa biyo ay cabto kuleelaha ma haysato wataa caagada aad arkaysaan isku foorarinaysa kuleelkeedii si ay caagada u iibiso ay u geenayso suuqa. waxaan idinkula talinayaa walaalayaashayda iyo walaalaha daawanaya fiidiyoogani in nimcada ilaahay ku siiyey ay ugu horreyso caafimaadka. haddii aad caafimaad haysato ilaahay wuu kuu dhameeyey nimcadii aad haysatay. ilaa marka ku xigtana hadduu ilaahay arsaaqad ku siiyana waa inaad ku xamdi shukrido si aanu ilaahay waxa uu ku siiyey aanu kaan qaad. waayo qofka shukriya ayuu ilaahay u badinayaa, qofkaan shukrina ilaahay adduunyada ayuu ku ciriirinayaa. inantii yareed suuqa ayay keenaysaa wixii yaray soo heshay lacag baana loogu bedelayaa. lacagtaa ay soo qaadatay ayadoon taaban ayay la soo cararaysaa waxayna la imanaysaa ay soo gelaysaa safka meesha lagu iibiyo jabaatida ama canjeerada. halkaasay safo gelaysaa inta ay ka iibsanayso. inanta yar waad arkaysaan diifta ka muuqata iyo dhibaatada ka muuqata. halkii ayay soo iibinaysaa cuntadii wayna la soo cararaysaa ayadoon dhinacna ka taaban ayay gurigoodii xaggaa ula soo cararaysaa. halka aad fiidiyooga ka arkaysaan ayadoon dhinaca eegin waxayna tiyareed u soo socotaa waa xaafadoodii si ay u qoodiso walaalkeedoo ka yar oo guriga ku sii sugaya isagoo gaajo ay hayso. halkaa ibal dhukashada iyo naxariista siinayso nafteedii waxay ku ilowday tii ayadu ay dhibaataysnayd walaalkeeda ay la dhibaataysan. waxaan idinkula talinayaa dadweynaha daawanaya fiidiyoogani in aad adigu aad wixii aad awoodana aad siiso qofka aan haysan, kii aan haysanna aad u ducayso, jaarkaagana aad hoos u eegto, ilaahayna aad ku shukrido in badan. ilaahay wuu isku eegaya adduunkan